بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الله سبحانه وتعالى قرآن كيسوح نقيري وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هدي أد صديدان إن أد أورورسان nimcada iyo barwaaqada Ilaahay idin siiyay ma koobi kartaan. Ilaahay waxa barwaaqo ah oo ku siiyay hadii aad isku daydid inaad tirisid, Ilaahay wuxuu leeyahay ma koobi kartaan. nimcada ugu weyn Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo qof uu siiyo waxa ugu weyn waa islaamka. qofku markuu islaam yahay, muslim yahay, waxa weeyaan wixii uu ku liibaani lahaa ayaa gacanta loo saaray. maanta marka aad soo gadatid TV-ga waxaa la socda buug yar oo kuu sheegaya sida loo isticmaalo. haddii buuggaasi uu kaa lumo, maanta oo dhan waxaad ku jiraysaa sidee wax loo sameeyaa, halkeen ka helaa qof i caawina. marka Allah subxaanahu wa ta'ala uu ku siiyay islaamka, macnaheedu waxa weeyaan adduunkan wixii lagu kala wadi lahaa ayuu gacanta kuu saaray. waa nimcad ugu weyn weeyaan. quraanka waxaa lagu sheegaa inuu yahay mid kuu sheegaya wixii hore u dhacay, mid kuu sheegaya waxa hadda jira, iyo mid kuu sheega waxa imaan doona. marka nimco ku weyn oo qof la siiyo ma jirto. caafimaadka Ilaahay baa ku siiyay oo waxa weeyaan dad baa maanta isbitaalka ku jiro u bukoonaya maanta inay helaan caafimaadka maanta aad haysatid. waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala nimcooyinka uu siiyay amniga, nabadgelyada waxa weeyaan waxay ka mid tahay waxyaalaha nimcada ah Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu siiyay. sanadkan bilowgiisii waxaan joogay Garowe. waxaan idin siinayaa waxyaalo yaryar oo nimcada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka mid ah. amniga magaalada Garowe ka jirta, waxaan arkay wiil yar oo 9 sano jira. aniga Sheekh Cabdiqaadir habeen wada lugaynayno 9kii habeenimo ayaa waxaan aragnay wiil yar oo asagana wadada socda lugaynaya. waa 9kii habeenimo. markaasaan dhaanay maxaa saacadan ku soo jeediyay, markaas guriga aan socdaa. bal eeg amniga uu haysto wiilka yar, wallaahi xataa Mareykan kuma haysan karo wiil 9 sano jiro inuu habeen 9ka habeenimo oo kaliya socdo. amniga Ilaahayna siiyay waxaa loo baahan yahay inaynu ilaashano loo baahan yahay. maanta wiilkaas yar oo kale oo dhex jooga Puntland, dhex jooga nabadda ku haysto, inaan nabaddaas u ilaalino ayaa loo baahan yahay. talooyinka waa lagu kala duwanaan karaa, hadal baa la isku qancin karaa, laakiin xabad la iskuma qanciyo. ninkii xabad la wareega aakhiritaanka xabaddaas asaga ku dhacaysa. maanta amni la'aanta markay dhacdo waa sidii maanta 15kii sano ugu dambeeyay laascaanood haysatay. shalay oo jimcadii 2 maalin ka hor nimcadii ay waysaneed 15 sano ka hor Ilaahay jimcadii buu u soo celiyay. dadkii oo dhan waxaad u maleysaa barwaaqada ka maqnaan, amniga ka maqnaay inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu gacanta u saaray. marka amnigu wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qofka bani aadamka loo baahan yahay inuu Ilaahay ugu mahadiyo. Ilaahay quraanku wuxuu ku yiri la in shakartum
لأزيدنكم هداد إيو شكرسان وإذن زيادين بل إيج نبداس ويل كير وكم مريا وددا سجال كي هبين وكم مريا هل كان مريكنك ويل كهذا ير هدي الأرك السجال كهبين أسقوا مريا قفل بعد دمعك الجلية يعني هيركاس وودنك الأورنكر ما أنت أدونك وودك إنه بتقلب من الأورنكر حتى أنا قف أمان عنقاس وكل أمانكم مهلكر إنك روحان كي إيمان ميل أمان كذا أساس وياه مركو حلو بعيا إلهي نكون شكرنا إلهي نكون مهدينا ما أنت الشن إلا باتن كاسنه وحلو جري أمان كاسي أمني كاس حلو جري وحلو بعيا ديب لون نقن النبي عليه الصلاة والسلام مركو الصحابة الله اللي يحكيري أنا جداش إذا هقول بنينا قالمو محايا النبي وحكوجا إني كسب بحين مجدي أي صقرن إفتين مركو حلو بهاي أمني جاس إلهي نسيي إن نجسي مالها كلا دون مرك الله فيريه إن إلاشنا لو بهاي أو قفل بوا قفك كلا إنه كجد دالو كجفي عناده إن أمني جاس وسقناده إلهي سبحانه وتعالى وحن أبرينا odayaashan ilaahayna siiyey ismada ilaahayna siiyey also waxa weeyaan waa nimcaday ka mid tahay aayad quraan ilaahay wuxuu ku leeyahay markuu ka hadlay dadkii waayadii hore ee khaladka sameeyay alaysa minkum rajulun rashidun miyuusan idin ka mid ahayn qof caqli leh oo idin waayin kara oo wax idin sheegi kara odayaasha maanta ismada ah ونمع إله سبحانه وتعالى أونسي الله باهي إن الجرب قبته مركي سحسيهين مركي خلديهين إن الجرب قبته ليرادو دين عسك هالله حتى لكن دين عنا كف عنان له ونمع ويان وإن تعودوا ما شيروا النبي عليه الصلاة والسلام جزاكم الله خير وقت كذا بعد السلام عليكم ميل في عم بعد نومرينيس waxaan u maleynayaa rag badan ba haday waxay moodayeen sida codka loogu kala horeeyo in loo kala weyn yahay nin dhalinyaro ah oo hadda ugu dambeyn doona oo deedaada meeshu ka gali doona inuu arki doona jira waxaan ku wareejinayaa Bile Faarax Bile waxaan ku weydiinayaa 2 daqiiqo 3 daqiiqo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنياشا iyo marwooyinka sharafta leh ee ka soo qayb galay xafladda 25 guurada lagu xusayo maamul goboleedka Puntland xilligii la aasaasay xafladda kale ee ku soo hoos gashay ka soo korodhay Khartoum State إن شاء الله أمانتي وعليكم السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماركة حيجا هذه بانو فرح سنة هاي عاوة أن لك افتمو حفلتي كور ريسي أي نبغى صاحبنا يوحي إن كان حفلتي بودلان أدنى وحفلتي كور ريسي مركزها واحد كور وان عرسنا هذه ما هي معمول قبلات أنت لاس عانو الله يستوي يقول أركي ميسد حفلت بانكوري عاد بوقص لنكي عاون قالوه تشوجا هذه عاد بنهبي وواي مركا عاوين كسو قيب قالوا ما دام لاس عانو حرطاي حفلته waxaan ku yardiiday waxba tirsanaydo in wax maqayiin baa tirsanayay uma diidanay si kale xafladda laakiin waa tagay Puntland baan tagay Garow waan tagay ilaa awr culus baan tagay meel la yiraahdo waa dhul aad iyo aad u sharaf badan weeye oo u baahan in la ilaashado Soomaaliduna wax weeye xoogaa dusha sare ira dhaydhaday habeen dhaweeyna Garow waynu ku siganay dhamaanteen waynu ku siganay waxa loo baahan yahay marka in la isu tanaasulo waxa weeye gobonnimo waa iska jiraya xukunka xilliyada xukunka waa lagu yaraa maartay dadku nin waliba uu iska jecel yahay
anigoon caawa cidna halkan ka dhaliilahayn waxa weeye waxa loo baahan yahay qurba joogta iyo guda joogta cid waliba marka wax soo kordhaan in wanaagga iyo nabadgelyada iyo sharafta lagu soo dabaalo oo aad ka qayb gashaan waxa nabadda ah waxa nabadda iyo wanaagga iyo isu tanaasulka dadkiina hadda caawa qurbaha jooga iyo hor jooga reer Puntland waa inaad ka qayb gashaan nabadda iyo isu soo dhaweynta Puntland isu soo dhexdeeda taas waa caawan kaga faa'iideysanayaa hadalkan aad iyo aadna waa u mahadsantihiin caawa hadalkaygu badan maayo waxa weeye gabdhaha noo soo abaabulay shirkan ee had iyo jeer u taagan gobonimada ummadda Soomaaliyeed bay gabdhuhu had iyo jeer u taagan yihiin mid maamul goboleed iyo mid Soomaaliyeed ba way u taagan yihiin aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad buu mahadsan yahay bile waxaan joognaa gabagabadii waan kusii siqaynaa insha Allah waxaan siinayaa nin dhalinyaro ah oo maaragtay runtii wax qabad badan aanu ku baranay magaalada Saciid Erklo. السلام عليكم دمان وإذا السلام يا هرتا mahad waxaa iskale Ilaahay oo halkaan isku keenay kuligeen mahad labaadna waxaa leh haweenkii iyo wiilashii soo abaabulay xalfadan waa xalfad muhiim ah saa u jeedaan aniga waxaa lagu soo dhaxtuuray niman dhalinyaro ah oo aniga aan ugu weynahay sababtaasna waxaa keenayso waxaa la igu yiri adaa laba bari ka jooga jamcihii baan ka soo noqday wadankii Puntland oo Garowe aan ka imid oo ilaa waxaan tagay Gaalkacyo ilaa Qardho marka message baan idin wadaa message-kana waxaan u wada waxa weeye waa dhalinyarada sidaan mooday ani waxa ugu dambeysay Puntland 2011kii waa adiga 12 sano ka hor haddaan war ka bixiyo waxaan dhihi lahaa dhalinyarada mataqaanaa reer Puntland ah Puntland hala maal gashto sababtoo waxa idin sheegayaa dadkii inta dad meesha joogta ka hadashay safety-ga uu leeyahay anigoo aan mataqaanaa iska reer xamar oo iska baacaha waxaan ka qaatay Gaalkacyo kaliya gaari waxaanu ku tagay ilaa Garowe gaarigaasna qof wax weydiiyay iyo xagee u socotaa iyo maxaa tahay in dhahayna malaha safety-gana waa intaas bay ku jirtaa marka hala maal gashto wadanka wixii ciyaal dhalayna mataqaanaa ha ka fakaraan inay ciyaalkooda meeshan kala cararaan oo wadankii maal gashtaan oo dhulka ay ka gataan oo iskuulo ka dhistaan oo mataqaanaa maal la geliyo marka intaas aan idinku ku darsan lahaa xalfadana waxaan leeyahay inta soo qabaabashay waa mahadsantihiin tan iyo teeda kale Ilaahay nabad ha noo gaarsiiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu horta cabdi waa mahadsan tahay dhammaan waa idinkaga mahad celinayaa sidaa ugu soo qayb gasheen caawa xafladan waxaan caawa u dabaaldegaynaa sidoo qorshaha aan oola socday sanad guuradii 25aad asaaskii state of Puntland macnaheedu marka maxay tahay weeyaan qofku waa inuu isweydiiyaa moogtay 25 sano xagee laga yimid 25 sano marka maxaana la soo maray 25 sano waxaa kaloo oo fact aan ognahay in 25 sano iyo intii ka horeysay ilaa 60kii xorriyaddan qaadanay waddankeena qaladaad badan uu galay ayna u sabab tahay maanta waxay halkaan dadka caawa halkaan u fadhiyaan kala qaybsanaanta aan kala qaybsanahay caawa xataa ereyga aan maqlayno ka mid tahay in Soomaali dhexdeeda ay kala xoroobayso macnaha waxaan taariikh soo marnay inaan gumaysi ka xoroono laakiin hadda inaan dhexdeena haddana aan noqoto inaan raadino inaan kala xoroono waa arrin kale oo dhibaato ah oo ku soo kordhay Soomaalidu waayo waxaasay u dhacaysaa waxaasay uma dhacayso qabiil Soomaalida waxaad moodaa in lagu maaweeliyo habeenii maalin qabyaalad laakiin waxay u dhacaysaa waxa weeyaan waa poor leadership hoggaan xumo Soomaalida ay salka ku hayso sidii xorriyadda u qaadatay ilaa maanta ayay hadda ilaa halka dhibaatadu noogu weyn naga haysataa shacabka Soomaaliyeed wuxuu ku xiran yahay sida loo diyaar gareeyo oo loo hagaajiyo loo dhiso si ay uga qayb qaataan future-koodii marka shacab la baabi'iyo laga shaqeeyay inay la baabi'iyana way ku adag tahay inay kala gartaan waxa uu fiican 25 sano hadda Puntland dhisneed magaalada Puntland waxaan maqlayay markii la bilaabayay $200,000 baa lagu aasaasay state of Puntland
25 sano waxay maanta maraysaa budgetkeeda 377 milyan 377 milyan ayay maraysaa markii loo fiiriyo waa lacag aad u waalan weeyaan laakiin reality markaad fiirisid waa lacag aan macno lahayn populationka ay sheeganayso state of Puntland dadka ku nool almost close to 5 million bay sheeganaysaa dad inay ku nool yihiin 5 million oo ku jira caruur odayaal dumar oo u wada baahan kulligood services sidii wax loogu qaban lahaa waxaad moodaa hadalka in lagu soo celcelinayo nabad baan haysanaa waa run nabaddu waa qayb ka mid ah laakiin waddankii waxaa ka dhashay oo jira oo fact ah challenge-ga ka jira waddanka waxaa ka dhashay waxa la yidhaahdo class structure Soomaalidu waagi hore dadka waa isku dhawaayeen laakiin hadda waxaa ka dhashay very much half and half not ba jirto xagga dhaqaalaha markaad fiirisid Puntland 25 sano waxay u noqotay horseed as a model lagu faani karo maanta Puntland federal systemka ka jira waddanka waxaa sal u ah state of Puntland waxaana fikradda ay oo la timid inay Soomaali kala badbaado ay nabad iyo wanaag ku wada shaqaysato xorriyadna ay kala hesho nasiib darro waxaa ah in dadkii kale weli aysan u bisleen sidii federal systemkii looga wada shaqayn lahaa waxaad moodaa inuu conflict aan dhammaanaynin inuu jiro markii laga hadlayo power sharingkii haddaad fiirisid dowladda dhexe oo federaalka iyo federal stateska waxay leeyihiin wax la yidhaahdo power sharingka wuxuu kala leeyahay boundaries loogu talagalay inaan laisku soo xadgudbin laakiin habeenii maalin waxaad moodaa in taas lagu xadgudbayo marka 25 sano ee hadda ay Puntland jirtay waxyaabo badan wanaag bay samaysay haddaad fiirisid federal state-ka kale ayadaa maanta ugu horeysa oo aad moodid inay leedahay character ka duwan characterka kale gobolada kale waxay leedahay character innovation wax la yiraahdo hal abuur bay leedahay waxay leedahay dad u bisil all the time nabadda oo nabadda raadiya waxay leedahay character oo ah wadaninimada dad fiirisid Puntland waxaan moodaa reer Puntland in ayaga laga saaray mas'uuliyadda Soomaaliya macnaha isku wadkeeda meeshaad aragtid qofka reer Puntland waxaad moodaa mar walbaba inuu ka sheekeynayo unity-ga Soomaaliya waa wax gaar u ah reer Puntland marka that unity-ga saytu iyo kala dambeyntaas ee siisay Puntland waxa culays ku haya dhibaatooyin aad u fara badan oo ka imaanaya xagga federaalka ka imaan kara xagga gobolada kale ka imaan kara wadamadan dariska nahay sida looga bixi karo qaybta ugu weyn aniga aan dareensanahay oo maanta reer Puntland ay u haysato fursad waxa weeyaan human capitalkeeda oo ku nool diaspora haddaad fiirisid ninka ugu fiican reer Puntland waa ninka intuu cararo gobolka waddanka intuu tago guri ka dhista ama raadiya inuu business gaar ah ka samaysto wali waxa naga maqan inaan ka shaqeyno bidii aha public interest maslaxadii guud gobolka leeyahay baa naga maqan waana maslaxada guud ee Soomaaliya ka maqan as well intay maslaxada guud ee ka maqan tahay dalka Soomaaliyeed ama state of Puntland dantaada gaarka it doesn't matter how much you built it macna yeelan mayso meesha ku dhamaanaysan waa ka wareynaa waddan dhan oo dhisan waxa loo burburiyay waa dan gaareed danta gaarka waxa ka wanaagsan in laga hormariyo danta guud ee maslaxada qofkaada aragtida Soomaaliyeed wuxuu ka fakarayaa how to make money on the price of the other person regardless what they don't care about it marka waa inaan xoogaa iskala qaybinaa waa in la helaa dadka qaarkood inay u istaagi karaan maslaxada guud ilaalin karaan maslaxada guud laga wada hadli karo wixii danta ah marka caawa waxaan halkan ka hadlayaa oo aan rabo inaan ku dhiirigeliyo reer Puntland wixii intii sano hore aad ku mashquulsaneed inaad ka fakartid reerkaaga xilki ka saarnaa will continue that responsibility laakiin waxaan ka codsanaynaa caawa wixii ka dambeeya inaad ogolaatid also mas'uulka ka saaran interest-ka guud ee gobolka iyo interest-ka guud ee dalka inaad ogolaatid inaad ka shaqaysid aad bartid gacantaada iyo afkaaga iyo qalbigaagaba inaad garab ku siisid waddankii waxaan kaloo rabaa inaan idiin sheego Puntland waxay caan ku tahay oo hadda already ay samaysay calaamado aysan lahayn gobolada kale
haddaan idin siiyo example success story waxaa garaacad dekedda garaacad oo maanta hadda noqon karto economic hub already waxay ku tahay threat existing macnaa boortkii jira ee ugu horeyso Djibouti ee ugu horeyso even United Arab Emirates inaad fahantaan important ah waan idin sheegay waddankeena waxa ku jira oo hantida ah shacabka Soomaaliyeed ee fiirsanayaan nasiib darro caawa dhan waxa lagu celcelinayaa cadowga then you assume cadowga inuu banaanka yahay of course banaanka waa yahay but waxaa ka sokeeya cadow kula dhashay oo walaalka ah oo aabbaha ah oo adeerka ah oo abtiga ah oo ku shaqeynaya sidoo waddanka u gadi lahaa u kala qaybin lahaa uga faa'iideysan lahaa isla markaana aan laga hor imaan karin waayo waa abtigii waa adeerkii waa seedigii waa dumaashigii inta aan ogolaanayno inaanan garan lanahay inaan garanno qofka noo roon iyo qofka aan noo roonayn already waad aragteen internetka in la bilaabay in hadal la geliyo dekedda garaacad waad garan kartaa waxa loo geliyay hadalka waxayna ka socotaa waa dowladda federaalka waa meeshii yareed oo hadda wanaaga waayo waxay noqonaysaa waa economic engine bay noqonaysaa it can transform the whole Somalia order it creates so many jobs so many opportunities nasiib darro haddaad ilaalsan laadihiin oo aad ogolaataan dadkaad u doorateen madaxda inay fariina ka bixiyaan oilka laga hadlayo waa sidoo kale marka waddankeenu waa waddan hodana maanta alxamdulillaah dad badan oo aqoon leh waa leenahay dibadda noo jooga waa inaan is ogolaannaa inaan isku nimaanno ka wada hadalno maslaxadeenna sidaan wax uga wada shaqayn lahayn Soomaaliya maanta dhinac kastaba dabka iyo dagaalka ka socdo dad Soomaaliyeed baa ku dhimanaya it doesn't matter meesha ka soo jeedaan ma rabo inaan noqonno saan annaga isku dilayno in waddankaas si sahal gacanta inooga baxo waa inaan is sixi karnaa waa inaan is dhegaysan karnaa caawa waxaan ku soo talagalay presentation dheer inaan idin siiyo oo aan ugu talagalay very much information fiican inaan idinku siiyo nasiib darro waa shaqayn weyse inaan idin siiyo presentationkaas kuma soo talagalin inaan hadlo intaan hadlay maan filaynin inaan hadlo waa mahadsantihiin habeen wanaagsan thank you guys waxaan halkan ka salaamayaa odayaasha qaaliga ah iyo maamayaasha qaaliga ah gabdhaheena qaaliga quruxda badan dhammaantiin waa idin salaamayaa reer Puntland oo dhan waa salaamayaa Soomaali weyn waa salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa oon u soo istaagay wax kale ma aha hadalkaygana ma badna inaan u mahad celiyo reer Puntland madaxdooda shacbigooda sida wanaagsan ee ay banaanbaxa uga sameeyeen magaalada Puntland xurriyadda lagu siiyay ay ku banaanbaxeen iyagoo u doodaya dadkaas masaakiinta xaquuqooda xamarna waxaa dhacday in lagu hasuuqo banaanbax nabadeed ayagoo wata balweynana waa lagu hasuuqay oo dad baa lagu dilay Puntlandna qof laguma dilin waana ku banaan baxeen nabadgelyo ku banaan baxeen halka waxa kaaga muuqan kara Puntland inay tahay goobtii Soomaaliyeed Puntland waxaan dhihi karaa waa maasantiin boqolkiiba boqol ilaahay waxaan idinkaga baryayaa nabadgelyo dawlad wanaagsan iyo iskaashi wanaagsan inaad wada yeelataan dhammaantiin garaadkii Soomaaliyeed baad noqoteen nabadgelyo doonkii Soomaaliyeed baad noqoteen odayaashii Soomaaliyeed baad noqoteen xil weyn baa idinka saaran cid kastoo dhibtoon oo Soomaali ah inaad u doodaan waanan idinku taageersanahay garabkiinaan nahay reer Puntland waxaan idin leeyahay guul iyo gobonnimo waa mahadsantiin hadalkayga intaasaan ku soo goobayaa waxaan u soo istaagay waa mahadnaqaas oo kaliya generaal sheegowna xurriyadiisa in la siiyaan rajaynayaa Puntlandna garan weyn ay nagu siiso